bulshada salaamaya meel kasta joogo dagaalkii bariga maanta uu bilaabmay maanta waa ku kala alf qaadayna bulshada salaamaya meel kasta joogo dagaalku socdaa war degdega meedadkii ugu badnaa ayay kala gurteen reeraha ciisaha iyo samroonka mar kale waxaa dhaxmaray dagaal qadhaadh iyadoona shalay ay idin baahiyay isla markaana aynu idin soo tabinay in suuragal ay tahay in mar kale ay isfarsaaraan maadaama galbeedka Soomaaliland labada dhinacba labada reerood bay galeen heegan iyo si lamid ahba diyaar garowgii ugu xooganaa ee ka dhanaha iyagoona markaan reerba reerka kale iyagoo wajahaya ayay toos isku farsaareen ee maanta lug haya halkaasi oo ka qarxay dagaal qadhaadh oo labada dhinacba iska laayeen deegaanka biyo dhaadheer iyo agagaarka ee degmada loo yaqaano tuulada sheedheer ee ka tirsan degmada Lughaya ayaa saaka waxa weerar halkaasi ku qaaday ciidanka jabhadda beesha ciise ayaa la sheegay inay ku weerareen fariisimo ay ku lahaayeen reerka Gadabuursa halkaas oo la sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac xaaladda dhabta lama soo gudbin karo laakiin dhimashada ayaa la sheegay in la baatameeyo kor ay u dhaaftay dagaalka ayaa wali sii socda isla markaana faraha ayay ka sii baxeen colaaduse faraha way ka sii baxday iyadoo dhawaan ay ahayd markii ugaaska guud beesha ciise oo ergi u soo diray isla markaana Soomaaliland si looga wada hadlo arinkan colaadda u dhaxaysa ee labada dhinac halka dawladda Djibouti ay ka socdeen ilaa 13 oo wafuud ama erga iyo 7 ay ka socdeen kuwaas oo looga talagalay inay ka shaqeeyaan iyo city oo ka socotay aga wafuud iyaguna isla markaana ay ka socdeen ugaaska guud ee beesha ciise ayaa ugu dambeeyay xaaladdu si maanta ay noqotay mid wada hadalkii ku soo dhamaaday in la isfarsaaro isla markaana la iska laayo shacab aad u tir badan runtii khasaaraha iyo dhimashada inta idin sheegaba waa ay ka tir badan tahay gabaari ayaa la iska qabsaday beesha ciise dagaal xoogan ayay qaadeen halka iyaguna Gadabuursa laftirkooda ay qaadeen dagaal aad u xoogan xaaladdaasi ayaa faraha ka sii baxday waxaase xitaa la ogaa waayay xaqiiqada rasmiga maadaama weli aan si rasmi ah loo xisaabin meedadka laakiin waxa la xaqiijiyay inay ka badan yihiin ilaa iyo 20 isla markaana ay intaasna kor ay u sii dhaafayaan cadad intaas leegna ay ka sii badan yihiin waayahay dagaalka ka socda ee weli ee biyo dhaadheer kaas oo u dhaxeeya beelaha Gadabuursaha iyo ciisaha ayaa sii xoogeysay iyadoona la sheegay in weerarka uu qaaday ciidamada beesha Gadabuursa ayaa dhinaca kala tabinaya inay yihiin cid sida rasmiga weerarka u qaaday laakiin tabada waxa la saadaalinayaa jabhadda beesha ciise ayaa sheegtay shuruudihii adadka oo ay hordhigtay ee Gadabuursaha iyo si lamid ah Soomaaliland dawladeeda ayaa suurgal noqon weysay inay socodsiiso ugu dambeyntiina la sheegay inay fuliyeen weerar aad u xoogan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay deegaanka biyo dhaadheer iyo agagaarka tuulada loo yaqaano ee sheedheer ee ka tirsan degmada Lughaya kadib markii saaka weerar ay ku soo qaaday halkaasi jabhadda beesha ciise iyadoona halkaas ay ka dhasheen khasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac xaaladdaasi ayaa faraha ka sii baxday siyaasiyiinta ka socday ee Djibouti iyo Ethiopia ee ka isla markaana ka tirsanaa beesha ciise ay kuwaas oo ku sugnaa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa la sheegay in dawladda Soomaaliland ay diiday gebi ahaanba in ugu dambeeyay uu sii socdo kulankaasi maadaama xaaladda faraha ka sii baxday isla markaana ay adkaatay shuruudihiina ay noqdeen kuwa adag saaka ay dib ugu laabteen Ethiopia ayaa la sheegay kuwii ka yimaaday halkaas kadib markii loo sheegay in nabad rasmi ay ka keenaan ugaaska beesha ciise oo shuruudaha ay ka mid tahay Zeylac inaan la faragelin karin isla markaana ay tahay magaalo beesha ciise ay leedahay taasoo ay sheegeen in xuduudii 1960 kaliya lagu dhaqi karo taasoo iyaguna ay sheegeen inaysan marnaba diyaar u ahayn in laga fargeliyo arrimaheeda ammaankeeda ayay ku sheegeen inay u baahan tahay waxay kale ugaas ciise ugaaska beesha ciise soo bandhigay shuruudo ay ka mid tahay in Zeylac aan waxba laga weydiin karin reer aan beesha ciise aan ahayn taas oo kalaftay in maanta Soomaaliland maamulkooda ay ka cadhoodaan isla markaana ay kala eriyadaan ergadii timid waxaase la sheegaa dhinaca kalena wararka ayaa sheegaya in arintaasi ay diideen iyaduna ugaas Mustafa heshiiskii taasina oo sababtay ugu dambeeyay inay fashilmeen wada hadaladii u dhaxeeyay labada dhinac maamulka hogaamiye Cabdiraxmaan Ciro ayaa si cad ugu sheegtay in haddii aanay keeni karin fariin nabadeed oo ka timaada ugaaska aanay jirin wax wada hadal ah oo soconaya isla markaana ay ku qasban yihiin inay dib u laabtaan ugaaska guud beesha ciisana laga keeno inuu ogolaado in beesha Samroon halkaas ay la degi karaan iyo deegaanada kale ee laga qaxiyay beesha Samroon gacantooda dib loogu celiyo isla markaana
ay samaroon ay awood ay u leedahay inay ka hadasho arrimaha zaylac iyo si lamid ahba deegaano badan. muuqaalo lagu faafiyey ee baraha bulshada ciidamada beesha ciise ayaa iyaguna dhinaca kalena ka soo muuqdeen iyagoo duljooga magaalada Shaadheer ee Saaka, iyagoona halkaasi ay sheegeen inay qabsadeen islamarkaana ay ahaayeen cidda guusha soo hooysay. waxaase la tabiyaa in xaaladdu iyadu laba dhinacba beesha ciise inay guulo waaweyn ay ka gaadhay ee Saaka dagaalka qarxay. dhinaca kalena muuqaalo kale iyaduna baraha bulshada lagu faafiyey iyadoo laftirkeedaba ay muujinayaan in beesha ciise iyaduna ay wadaan dadaalo aad u xoogan islamarkaana ay ka shaqaynayaan sidii mar kale ay ugu adkaan lahaayeen beesha samaroon. beesha ciisaha samaroonta ayaa iyaguna muuqaalo baraha bulshada ay ku faafi ay ka muujiyeen meelo ay ka mid tahay biyo dhaadheer iyo nawaaxigeeda inay joogaan islamarkaana ay doonayaan inay gebi ahaanba iska dulqaadaan beesha ciise. samaroon ayaa wacad ku maray in loo daayo islamarkaana Somaliland dowladeeda dhexdeeda ay ka baxdo, in laysku daayo ciisaha iyo samaroonka. samaroonka waxay sheegeen inay ka adkaan karaan islamarkaana hilfaha ay u laabi karaan reerkan ciisaha la yiraahdo. waxayse sheegeen inay diyaar u yihiin inay dagaalamaan islamarkaana hadduusan hal qof xitaa ka harin. waayahay maxaa ka soo kordhay waaye waxaa ka soo kordhay xaaladdu ayaa gebi ahaanba aan loogeen. beesha ciise ayaa iyaduna hub uruursi ku jiray ayaa muuqaal kale lagu soo bandhigay deegaanka loo yaqaano dirwa halkaasi ama dirdhabe halkaasi oo iyaguna ku soo bandhigeen ciidamo xoog leh iyo hub si lamid ahba, kaasoo lagu sheegay inay tahay diyaar garowgii kama dambayska ahaa lagu weerar tagi lahaa. ciidamada madaniga ee Gadabuurse ayaa iyaguna waxay sheegeen in Gadabuurse hal qofba uusan ka dhaawacmin, yacni hal qof xitaa kama dhaawacin, halka beesha ciise ay ka dhinteen 13 qofood 18 qofoodna ay ka dhaawacmeen beesha ciise. laakiinse warkaasi ma ahan war la hubo oo la xaqiijin karo maadaama cidda duulaanka soo qaaday marna la sheegayo in reerka Gadabuurse yihiin, marna la sheegayo in reerka ciisaha yihiin cidda oo sida dhabta weerarka u soo qaaday. haddase intaas marka laga soo tago haddana weli lama tabin karo xaqiiqda rasmiga deegaanada. siyaabo kala duwan ayay dadka u kala sheegayaan maadaama xaalad colaadeed ay halkaasi ka taagan oo adkaatay xitaa in la helo xaqiiqda dhabtaha. waayahay faraha ayay kasii baxday biyo dhaadheer iyo ilaa iyo lughaya ayaa la isku hayaa. ujeedada ugu weynna ay ka taagan tahay waa muranka dhuleed. waxaase la sheegaa in dagaalkan haddii beesha ciise ay ku adkaato in faraha loogu qaadi doono zaylac iyo nawaaxigeeda deegaanadii hore ay ugu qabsatay beesha samaroonna ay ka kixisay. laakiin haddii samaroon ay ku adkaato dagaalka ayna guulaysato waxaase la sheegaa in zaylacna beesha samaroon ay tali ay ka lahaan doonto islamarkaana taladooda qayb ay ka qaadan doonto. dhinaca kalena ay deegaanadii hore looga saarana ay gacantooda dib looga celin doono. waayahay suuqa Boorama oo haawanaya kadib markii gaadiidka bajaajta waayahay ayda ka raaligeliyo. xaaladase ayaa lama oga ilaa hadda biyo dhaadheer iyadoona la sheegay in colaadda xitaa laga dareemayo ilaa iyo Boorama inay gaartay islamarkaana ay saameysay colaadda u dhexeysa reeraha ciisaha iyo samaroonka. hub isku aruursi xoogan ayaa taagan islamarkaana dagaalkuse lama oga halka uu ku dambeyn doono iyo si lamid ahba qaabka loo weerar tagi doono. cabsi aad u xoogan ayaa ka taagan halkaasi. gebi ahaanba galbeedka Somaliland ayaa la sheegay in laga dareemayo cabsida aad u xoogan islamarkaana lama oga waxa dhabta ay dhici doono. waayahay xaaladuse ayaa faraha kasii baxday. halkeese ayay ku dambeyn doontaa colaadan iminka laysfarsaaray islamarkaana ka dhashay khasaaro kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. yaase qaadi doono mas-uuliyadda colaadan halkaasi lagu qaaday iyadoo si aan la ogeyn cidda sida rasmiga u qaadi doonto mas-uuliyaddan dagaal islamarkaana halkaasi lagu qaaday iyadoo siyaabo kala duwan loo fasirayo. reerba reerka kalese ayuu ku eedeynayaa. waayahay daawadayaasha sharafta leh xaaladuse ayaa faraha kasii baxday. ugu dambeyntii ugaaska guud ee beesha ciise ayaa la sheegay inuu ku amray beesha ciise dhammaantoodba inay galaan diyaar garowgii ugu dambeeyey si loo qaado weerarka madambeesa oo loogu adkaan lahaa reeraha samaroon, isagoona sheegay inaysan tani ahayn marnaba wax la aqbali karo. wuxuuse kale fariin aad u kulul u diray Somaliland isagoona madaxdooda u sheegay inay laba mid inay qaataan ama inay aqbalaan shuruudaha reerka ciise aysan ahayn
inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo aad u xun guban isteedna halkaasi laga hirgelin doono islamarkaana mar kale ay shaqayn doonto isagoona sheegay in gebi ahaanba aysan ka aamusi karin dhammaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka ee reeraha kale imika ay ku hayaan wuxuuse wacad uu ku maray in gebi ahaanba aysan aqbali doonin dhammaan arrimahan ee reeraha kale ay doonayaan isagoona carabkiisa ku adkeeyey inay bixin doonaan jawaabo aad u kulul islamarkaana aad u adag beesha ciise ayay sheegeen inay diyaar u yihiin inay galaan diyaar garowgii kama dambeysa ee lagu qaadi lahaa duulaan oo hor leh